tilaabo weyn oo uu qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa abuurtay qeyladaan xoog leh oo ka timid Muqdisho iyadoo ay dawladda federaalka Soomaaliya jahawareer ka qaaday tilaabadan uu qaaday Muuse Biixi Cabdi golaha wasiirada Soomaaliya iyo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta isugu yimi kulan ayaa si weyn uga hor yimid heshiiskan dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya iyadoo uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu eedeynayo inuu qorshahan wax ka og yahay uu jeediyay khudbad intii la filayay ka hoos martay xilli uu hogaamiye Biixi oo ku sugan Addis Ababa qaaday tilaabo weyn oo geeska Afrika oo dhan saameyn ku yeelan doonta tilaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waa mid aan horey loo arag oo ay ku dhici waayeen madaxdii ka horeysay Muuse Biixi ee soo maray xukunka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa heshiis rasmi ah la gaaray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyadoo uu Muuse Biixi qalinka ku duugay heshiiskan marka la eego tilaabada uu qaaday Muuse Biixi iyo kulankii Djibouti ku dhex maray Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi oo aan wax faahfaahin ah laga helin waxa la aaminsan yahay inuu Muuse Biixi kulankaas ku qaatay go'aan ka jeexay jihada ay Soomaaliland aaday iyadoo ay dhinaca xamar taalay kulankaas kadib wararka sheegaya inuu hogaamiye Biixi ogolaaday in Soomaaliya dib loola midoobo halka ay gudaha Soomaaliland arrintaas ka abuurtay kala shaki iyo tuhun xoog leh waxana waxaas oo dhan boorka ku qarisay tilaabada uu qaaday Muuse Biixi ee uu ku baadigoobayo aqoonsiga Soomaaliland waxana muuqata inuu hogaamiyaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi siyaasad ahaan ka hoos baxay Xasan Sheekh iyo Ismaaciil Cumar Geelle oo uu muddo dheer ka raadinayay aqoonsi buuxa oo ay Soomaaliland hesho waxaana uu Muuse Biixi qaaday tilaabo weyn oo saameyn ku yeelanaysa jihada cusub ee ay Soomaaliland aadayso iyadoo uu dhigayo heshiiskan in Soomaaliland laga caawiyo waxyaabo badan oo ay ka mid tahay dhismaha ciidanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo inay Soomaaliland saami ku yeelato diyaaradda Ethiopian Airlines sidoo kale Itoobiya ayaa si buuxda u aqoonsanaysa Soomaaliland iyadoo heshiiskan lagu dhameystirayo muddo bil ah haddii uu dhaqan galo heshiiskan ay wada gaareen Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed waxay ka dhigan tahay guul siyaasadeed oo uu gaaray hogaamiyaha Soomaaliland Muuse Biixi sidoo kale waxaa bilowday khilaaf iyo loolan cusub oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya iyadoo ay maanta Soomaaliya u yeertay safiirkeedii u joogay Itoobiya lamana oga waxa ay sameyn doonto dawladda Itoobiya iyo sida ay u aqbali doonto codsiga Soomaaliya sidoo kale xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay heshiiskan ay wada gaareen Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed iyadoo qoraal ka soo baxay xisbiga wadani lagu yiri waxaan dhowraynaa soo noqoshada madaxweynaha Soomaaliland waana ku faraxsanahay haddii uu jiro aqoonsi ay Itoobiya siisay Soomaaliland taasoo ka dhigan inay Soomaaliland mucaarad iyo muxaafid wada aqbaleen go'aankan halka dhinaca Soomaaliyana uu ka socdo qorshe lagu burinayo heshiiskan ay wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya si walbaba waxa isha si weyn loogu hayn doonaa socdaalka Biixi ee ku laabashada magaalada Hargeysa iyadoo uu wali Muuse Biixi ku sugan yahay magaalada Addis Ababa intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay